wafdi ballaaran uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka haya kulmiye Axmed Cabdi Dheere oo ay safarka ku weheliyaan wasiiro iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga kulmiye ayaa maanta si diiran oo aan loo kala hadhin loogu soo dhaweeyay degmada Galadaga ee galbeedka gobolka Sanaag. maamulka degmada Galadaga mas'uuliyiinta xisbiga ee heer gobol iyo heer degmo waxgarad waayeel iyo badida bulshada reer Galadaga ayaa gudoomiyaha iyo wafdigiisa si meeqaam sare leh ugu soo dhaweeyay degmada Galadaga. madax dhaqameed waxgarad iyo mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo halkaasi ka hadlay ayaa carabka ku dhuftay inay reer Galadag mar kale guntiga u xidheen sidii ay cod iyo cudud dawlad garab istaagi lahaayeen xisbiga kulmiye gaar ahaan musharaxiinta golaha baarlamaanka iyo deegaanka uga sharaxan xisbigaasi. mudane gudoomiye iyo mudane wasiirada sidaad arkaysaan bulshooyinka reer Galadag sidii horeba loogu yaqaanay waxay taageero mug iyo miisaan leh oo haysaa xisbiga kulmiye iyadoo ay tahay waqti Ramadaana kulul oo waliba jimca aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa marka hore booqashadiina aad noogu timaadeen dadweynaha reer Galadagna sidoo kale aad iyo aad hayaba annaguna waxaanu Galadag ugu diyaar garownay inaanu ku soo dhaweyno kulmiye waxaanu sanadka maanta rajaynaynaa ninka ka sharaxan kulmiye waa injineer Maxamuud Saalax Cabdi waxaanu ku rajo weynahay inaanu soo saarno insha Allah bilmilaah alkariim daweynta reer Galadag ee kulmiye iyagana sidaas leeg reer Galadag iyo kulmiye mana ballamaan ismana waayaan marka waxaanu ku dadaalaynaa xildhibaanada majority inaanu yeelano ama golaha wakiilada noqdeen ama kuwa deegaanka noqdeen Galadag sida raggii hore sheegay degmada Galadag waxa lagu yaqaanay in xisbi xaakimka taageerto haddana waxaan rajaynaynaa boqolkiiba boqol ay sii kordho sii hagaagto waxaan kaloo sheegayaa wafdiga musharaxiinta xisbiga kulmiye ka sharaxani inay yihiin raggii xulka ahaa ee dadweynuhu ku kalsoonaa iyana mar labaad aad baan u soo dhaweynayaa sidaasaa ku warqabaysaan sidaasaynu xisbigeena ku soo saaraynaa waxa baarlamaanka ka sharaxan Maxamuud Saalax ku soo dhawaada xisbiga kulmiye ku soo dhawaada xisbiyadu waa kala xisbiye waa xisbigii jamhuuriga ahaa halkan waxa taagan dhammaan taageerayaashii xisbiga kulmiye ee degmada Galadag oo maalin jimca oo Ramadaana sidan mugga iyo miisaan kale ugu soo baxay iyagoo jacaylkaaga iyo rabitaankaaga iyo codkaaga in badan halka u taagnaa waxaanu ku leenahay soo dhawow soo dhawow soo dhawow xisbiga kulmiye iyo Galadag cidina isu sheegi mayso reer Galadag waa kulmiye kulmiyena waa Galadag reer Galadagna waa gobtuna way abaal gudaa xisbiga kulmiye wax badan ayuu gashaday gobolka Sanaag iyo degmada Galadag reer Galadagna way ka abaal gudi doonaan barasaabka gobolka Sanaag wasiiro iyo madax ka tirsan xisbiga kulmiye oo hadalka iskaga kala dambeeyay ayaa u mahadnaqay bulshada reer Galadaga soo dhaweynta milgeedu sareeyo ee ay u sameeyeen. waxaan ka hadlayaa waa nabadgelyada waxaanu galay waad ogeydeen abaartii iyo dhibaatadiina soo martay maalmo ka hor halkan waxaynu ku qayliyeynay biyo la'aan waxaynu eryenaynay booyadihii oo aynu ku dhaabinayno dabada haysanay kuyuba loogu jiray raxmadda ilaahay uu ina siiyey alxamdulillah ilaahay lagu mahadnaqo oo loogu shukriyo way mar labaad waxaynu leenahay raxmadda ilaahay ina sii nabadgelyada hal ilaaliyo mar alla markuu roobku da'o waxa la sameeyaa oo la soo qaataa oo la idhaa la isku qabsadaa dhulka la isku qabsadaa marka nabadgelyada hal ilaaliyo talabaad doorasha la galayaa waxaan idinku boorinayaa inaad nabadgelyada ilaalisaan waxaan idinku boorinayaa muuqata waa markhaati madoon weeye waxa la yidhi ood weyne ayaa waa kaftamayaa ee cigaalberi tegey markaasaa reer ood weyne aqal ka dhisa baa la yidhi yaa islaanta haba la yidhahdana waa la fadhiisiiyey markaasaa la yidhi cigaalow allow kuu naxariiso aqalkii aad ku dhalatayna waa kaa
dahabara iyadaa ku qabato waata halkaa fadhida baa la yidhi waxaan uga jeedaa xudunta kulmiye waxay taalla garadag xudunta kulmiye waxaanu aad idinku mahadnaqaynaa horta dee garadag waa lagu yaqaanay oo maaha wax cusub oo halkan dee maanta laga sheegi maayo wax garadag ku cusub garadag waa lagu yaqaanay inay kulmiye tahay waxaa la yidhi madagta bahasha leeyo madagta ee dabka laga dhaliyo nina wuu baryaa markuu madagta dabka ka dhalinayo wuxuu yidhaahdaa diiloy dabis nina intuu sidaa xoog u qabto wuu yidhaahdaa diiloy doobna kaa korreeye dabna kaa uraye marka waxa weeye xisbiguna waa kulmiye hadda waa kulmiye waa garanaysaan kulmiye markay baashu ishu dhiig yeelato kulmiyuunbaa halkan ka soo baxaya waa la garanaya waa la ogyahay cid walbana waa ogtahay waxaan idin leeyahay reer garadagow xildhibaan 9 xildhibaan ayaa idinka sharaxan iyo xildhibaanka golaha wakiilada ee sharaxan maxamuud saalax cabdi soo saara micnaheedu waxa weeye xisbigii baa soo saarteen 9kaasuna hadday soo baxdo xildhibaanka golaha wakiiladuna soo baxo xisbigii baa soo saarteen gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye Axmed Cabdidheere oo gunaanadkii madasha ka hadlay ayaa shacabka reer Garadag ku amaanay soo dhaweynta sare ee ay markasta la garab istaagaan xisbiga kulmiye runtii xisbiga kulmiye guulihiisa waxa lagu gartaa soo dhaweynta imika halkan ka muuqata Somaliland 95% waa dhalinyaro iyo haween shan baa ka aray inta halkan joogtaaba waa dhalinyaradii iyo haweenkii aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa soo dhaweynta aan soo dhaweyseen waxaanu waftigeedanu daaran yahay inaanu la kulanno xildhibaanada golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee sharaxan oo aanu wixii aanu soranayno degmo kasta gabagabadii wuxuu gudoomiye Axmed Cabdidheere xadhiga ka jaray xafiisyo xisbigaasi ku yeelanayo degmada Garadaga sidoo kalena wuxuu gudoomiyuhu shirar la qaatay musharaxiinta xisbiga kulmiye ee degmada Garadaga iyo maamulka xisbiga kulmiye ee degmadaasi Maxamed Gumburi telefishinka caalamiga Bulsho TV degmada Garadaga